kalluumaysiga sharci darrada ah ee lagu hayo xeebaha dalka Soomaaliya waxa uu taxanaatan iyo horraantii sanadihii 70-meeyadii doonyo kalluumaysi oo casri ah oo laga leeyahay dalalka Talyaaniga iyo Masar ayaa farabaan ku hayay xeebaha Soomaaliya. Waxa sidoo kale jiray maraakiib kalluumaysi oo laga lahaa dalalka ku jiray Midowgii Sofiyeeti oo iyana doolaalo ku iman jiray xeebaha Soomaaliya. Marka laga hadlayo kalluumaysiga sharci darrada ah xeebaha Soomaaliya waxaa loo soo qaataa tusaale mar walba maxaa yeelay waa taariikh aad u fog oo ay leeyihiin xeebaha Soomaalida. Sanadihii 80-maadkii waxaa jiray in doonyo kalluumaysi oo laga lahaa dalalka Pakistan, Hindiya iyo Kenya oo farabaan ku hayay kalluumaysiga Soomaaliya iyo kalluunka xeebaha Soomaaliya laga helo. Waxa ay dowladii madaxweynaha u ahaa madaxweyne Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay ay sameeyeen abaabullo iyo dardargelin ciidamadii badda ee Soomaaliya kuwaasi oo sidoo kale qaabilsanaa ilaalada badda. Waxa ayna la wareegtay doonyo iyo maraakiib badan oo lagu soo qabtay falal kalluumaysi sharci darro ah, waxaana markasta saarnaa culays ciidamada ilaalada badda Soomaaliya maadaama ay Soomaaliya ay leedahay xeeb aad u dheer isla mar ahaantaasna xeebtaasi ay tahay midda ugu dheer qaaradda Afrika. Waxaa sidoo kale ciidamada Soomaaliya ee ilaalada xeebaha iyo badda aysan haysan qalab casri ah. Ciidamada qaranka ee ilaalada xeebaha Soomaaliya waxa ay arrimahaasi ay dhibaato xooggan ay ku haysay in ay gutaan waajibaadkooda isla mar ahaantaasna si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyada ka socda xeebaha Soomaaliya. waxa ay aad u adkayd in ay xogo muhiim ah ka helaan cidda ku jirta isla mar ahaantaasna ka kalluumaysanaysa xeebaha dalka. Kadib burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya waxaa baylaha noqday hantidii shacabka maadaama aysan awood dhexe oo u idmaneyd ilaalinta hantida guud ee shacabka aysan jirin. Waxaa meel cidla ah laga qaatay kheyraad dabiici ah oo ay Soomaaliya kaga bixi kareen gaajada iyo macaluusha, taas oo ay saldhig u tahay colaadaha iyo dagaalada ragaadiyay Soomaaliya. Ma ahayn oo qura in ay Soomaaliya ku weyday oo looga dhacay hanti xooggan, hase yeeshee tan ugu daran ayaa ah in dhaawac loo geystay deegaanka badda. Waxaa la dhaawacay dhagaxa badda gunteeda ku hoos jira ee ay ku tarmaan kuna noolaadaan noolayaal badan oo badda ku nool. Waxaa sidoo kale qaabka jariifka u burburiyay ugxaanta oo kaliftay in uu dhaco nabaad guur noolayaasha badda ah. Waxa ay keentay in la waayo oo ay dhammaadaan noocyo badan oo kalluunka ama noolayaasha kale ee badda. Wadamada Thailand, Talyaaniga, Yemen iyo dalal badan oo khaliijka Carabta ka mid ah ayaa waxaa keenay oo la soo heshiiyey ganacsato iyo rag siyaasiyiin ah kuwaasi oo ahaa rag Soomaaliyeed. Waxa ay ka qaadan jireen lacaga yaryar si loogu fududeeyo in ay ka jariifaan xeebaha Soomaaliya. Qaramada Midoobay hay'adda u qaabilsan cuntada iyo beeraha warbixino hore oo ay soo daabacday waxa ay ku sheegtay in Soomaaliya ay weydo sanad kasta lacag ka badan 350 milyan oo dollarka Mareykanka iyada oo laga dhaco hantidaasi aadka u faraha badan. Muddo 30 sano ah ayaa lagu hayay sanad kasta dhaca inta la eg. Sidaasi darteed Soomaaliya waxa ay ku weyday in ka badan 10 bilyan oo dollarka Mareykanka, waana lacag aad u weyn waxna u tari lahayd Soomaalida si ay dalkooda dib ugu dhistaan. Maamulka Puntland ee Soomaaliyeed deegaanada hoos yimaada ayaa si aad ah Qaramada Midoobay ay u soo hadal qaadaan in ay ka mid yihiin meelaha ugu badan ee lagu hayo xaalufka badda maadaama siyaasiyiin iyo madax u dhashay ay keeneen xeebaha Soomaaliya maraakiib ajaanib ah oo ay ka soo qaateen lacaga yaryar si loogu fududeeyo xaalufka. Soomaali badan ayaan ka fakerin dhibaatada ka dhalan karta maraakiibta ay ku soo hogaamiyaan dalkooda, waase wax u gali karta taariikhda qaybta madow iyo in jiilasha soo socda ee dhaxalka u leh Soomaaliya ay waayaan kheyraad aad u badan isla mar ahaantaasna ay ku dabaraan noloshooda. Sanadihii 2016 ilaa 2017 waxa ay bilaabeen Midowga Yurub inay ka helaan xogo muhiim ah wasaaradda kalluumaysiga ee xilliga u dhisneyd Soomaaliya si wax looga qabto maraakiibta ku jira badaha Soomaaliya. Midowga Yurub ayaa geliyay liiska madow maraakiib badan oo laga lahaa dalka Thailand, Iran iyo qaar kale oo laga lahaa dalalka Midowga Yurub kadib markii lagu helay kalluumaysi sharci darro ah kaas oo aan diiwaan gashanayn isla markaasna aan marin hababka hagaagsan ee loo kalluumaysto. Soomaaliya waxay u baahan tahay shacab wadaniyiin kuwaasi
oo ilaashada kheyraadkooda isla markaasna uga faa'iideysta kheyraadkooda sidii loogu talagalay. qaabka kaliya ee lagu joojin karo kalluumaysiga sharci darrada ayaa noqon kara in loo sameeyo ilaalada badda kuwaasi oo tababaran isla markaasna haysta qalab casri ah si ay u helaan xogaha maraakiibta iyo doonyaha samaynaya dhuumaalaysiga si ay xaalufin uga sameeyaan xeebaha dalkeenna. wax soo saarka kalluumaysiga ee dalka Soomaaliya waxa uu noqon karaa 20% guud ahaan wax soo saarka dalka, waana cunsur muhiim ah marka laga hadlayo yareynta baahida ee dalkeenna. habka kalluumaysiga waara ee badqabka ah ayaa sidoo kale u baahan in laga soo saaro xeerar si aysan u dhicin xadgudubyo ka dhana deegaanka baddeena iyo noolayaasha ku nool si looga faa'iideysto kheyraadka ceegaaga. intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkan kooban oo aanu kaga hadlaynay kalluumaysiga sharci darrada ah ee loo geysanayay xeebaha iyo badda Soomaaliya. barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cali Dalmara. barnaamijkan mid lamid ah intaanu isaga imaan doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.